wacdiga iyo waanadaba marka labaadna tala soo jeedinta uu soo jeediyay mudano waxa maanta inoo jooga labada xer waynu kala horeysiinaynaa arinta iyadoo aan talaba ka soo bixin waxaan u yeedhay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo tiimkiisii iyo la taliyaashiisa sharci oo inoo fadhiya inoona soo geli doona marka aynu hawlo yar oo ka horeeya xogayaa guud inoo sheego maantana waxay u badan doontaa inay iyagu xeerkan maadaama aynu inagu xeerkii ka dhignay xeer aan hore inoo soo marin ay doodoodii xaq bay leeyihiin xaqoodii iyaga aynu siino xildhibaanadooduna xaqii ay qaataan oo su'aalo waxay ka weydiiyaan bay maanta u badan doontaa insha Allah ka shidaalka marka la gaarana sidaas si leeg bay noqon doontaa hay'adihii ay khuseysay inaynu sidaas iyaga iyo la taliyaashoodii sharciga oo dhammaystiran marka hawsha insha Allah waxba naga degdegina hawshaas waa diyaarinay waana idin joogaan iminka hay'adii shaqaalaha dhammaan ciddii diyaarisay ciddii ka taakulaysay la taliyaashoodii sharci way joogaan waxaan ka hormarinayaa xogayaa guud idin sheegi doona insha Allah si aynu arrimaheennan u waafajino sharciga mooshin sharci oo ay keenaan xildhibaano ka mid ah xildhibaanadu insha Allah iyo saaminta shidaalka sida uu xeerashaadku dhigayo gudoomiyay adigaan kugu soo wareejinayaa si aad xildhibaanada u yeedhiso mudane mukhtaar xasan maydhane waa joogaa mudane cabdilaahi yuusuf axmed mudane maxamed abiib yuusuf mudane mubaarak xuseen maxamed aldheere mudane axmed محمد محمود مدني سليمان محمد فارح مدني جمعالي أحمد علمي مدني محمد جامع إسماعيل مدني عبد الكريم معاد حسين مدني عمر جامع فارح مدني أبو بكر أبوكر فارح ورسمه مدني حسن عمر حسن مدني أحمد شاه صالح مدني نور اسمان قولي مدني أحمد محمد هوري waxaan jeclahay inuu yimaado uu yimaado xildhibaanku ugu horeeya mukhtaar xasan maydhane oo uu akhriyo haddii ilaahay idmo maxaa dhahdaa mooshinka waxaanan u gudbin doonaa la taliyaha sharciga haddii ilaahay idmo isaguna بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدن قدومية مدن عيال marka hore aan afeef yar dhigto waxa weeye sida xeer hoosaadkeenu dhigayo xeerarka ka soo noqda golaha guurtida tusaale ahaan waxa xeer hoosaadkeenu dhigayaa inaynu ka doodno oo keliya qodobada soo noqda oo aynaan ka doodin nuxurka maadaama golihii aynu ku cusubnahay xeerarkana inaga horeeyeen ayaa ujeedada guud ee aanu dalbanaynay soo jeedintan ay tahay waxaan akhrinayaa imika waxa ku qoran warqadda ku socota gudoomiyaha golaha wakiilada og xogayaha guud ee golaha wakiilada ujeedo soo jeedin mooshin la xiriira ka doodista xeerarka shaqaalaha iyo sahaminta shidaalka annagoo ka duulayna nuxurka ku tilmaaman qodobka 24aad ee xorhoosaadka faqradiisa koowaad oo golaha wakiilada xeer lambar 12/2021 oo u dhigan sidan mudanayaashu waxay xaq u leeyihiin inay soo qoraan codsi mooshin waxaana ku soo hagaajinayaan xogayaha guud iyo isla xeer hoosaadka qodobka 43aad oo u dhigan sidan habraac kasta oo jideynaya xilgudashada golaha iyo gudiyada waxa lagu laari karaa soo jeedin goloweynuhu ku aqbalay go'aan gole sidaa awgeed waxaanu halkan ku soo gudbinaynaa soo jeedin ujeedadiisu tahay sida kor ku xusan in laga doodo dhammaan qodobada ku jira labada xeer ee kala ah xeerka shaqaalaha dawladda iyo xeerka sahaminta shidaalka
oo golihii inaga horreeyey ansixiyey guurtidana u gudbay isla markaana ay dib ugu soo celiyeen golaha. haddaba maadaama oo golahani cusub yahay muhiimna ay tahay inaynu hubinno mabaadi'da iyo nuxurka ay xambaarsan yihiin labada gole ee xeerkan. allah mahadleh, intaas darteed ayaanu u soo jeedinay in laga doodo. aad baad u mahadsan tahay guddoomiye. waxaynu gudbinayaa la taliyaha sharciga si uu u hubiyo inay waafaqsan tahay shuruucda dalka iyo dastuurka. mooshin waxaanay ku soo hagaajinayaan xogayaha guud anigoo tix raacaya isla faqradda sideedaad ee isla qodobkan oo tilmaamaysa in tirada xildhibaanada mooshin keeni kartaa aanay ka yaraan 11 mudane anigoo maanka ku haya qodobka 17aad faqradiisa labaad oo u dhigan sidan habraac kasta oo jideynaya xilgudashada golaha iyo guddiyada waxaa lagu laali karaa soo jeedin goloweynuhu ku aqbalay go'aan gole. sidaa awgeed waxaan xaqiiqsaday anigoo ka duulay nuxurka uu xambaarsan yahay moshinku waxaan xaqiiqsaday in mooshinkaasi uu waafaqsan yahay xoroosaadka sidaana uu ku noqonayo mooshin xalaal. Assalaamu calaykum in aynu labadaa xeer oo aynaan dabeecadii ay ku ansixeen hore u garanaynin aynu golaha dib ugu soo celinno waxaa khasaba inaynu waafajinno shuruucda dalka iyo xeerhoosaadka golaha. sidaa darteed si ay u noqoto oo u bannaanaato ansax u noqoto inaynu ka doodno doodgelinno labada xeer waxaynu codgelinaynaa mooshinkan ay mudanayaashu soo gudbiyeen ay nagaga dalbanayaan in labadaa xeer ee xeerka shaqaalaha dowladda iyo xeerka muxuu ahaa saaminta shidaalka aynu codgelinno. marka waxaan ka codsanayaa inamadu inay soo gudbiyaan mudanayaasha fadhiya waa 61 mudane cod baynu gelin doonaa inta ogol mooshinka ay 16 xildhibaan soo jeediyeen ee odhanaya inaynu labadaa xeer dib u gelino dood u gelino goloweynaha u gelino gacantaa taagan inta ogol. هدجين مدنياشو هدجين إياك مدنياشو مدنياشا كعاموس هدجي مدنياشا كعاموس يقع عن تاجي xildhibaanada fadhiyey waa 61 waxaa ogolaaday inaynu mooshinkan ka doodno 58 waxaa jiray hal xildhibaan waxaana ka aamusay hal xildhibaan guddoomiyuhuna moo codayn sidaasayna ku ansaxday mooshinkii ay keeneen 16 xildhibaan.